بسم الله الرحمن الرحيم وإدنا آذن إسماعيل وإذن كلا هاد ليسا مقالة هرقيسا عاصمة الصومالي لاند فرينتا إذن ساكا waxay u jeedaa oo u socotaa ummadayda Somaliland dadkayga aan jeclahay oo aan Ilaahay uga baryayo in Ilaahay cudurkan coronavirus uu keeno ee axmaqa ah ee dilaaga ah ee adduunkii gumaaday inuu inaga badbaadiyo cudurkanu sida aanu iri waa axmaq cid uma tudho siduu u galay ummadihii inaga awoodda badnaa inaga awood iyo dhaqaale badnaa siduu u galay way naga aragna wuxuu dhex galay dal walbo adduunka ah dal muslina dad gaala yuhuudi kuwii aan diinaba haysan kuwii cadcadaa madoobaa timo dheeraa nooc walba wuu galay innagana hadduu ina soo dhex galo oo inagu fido hamba inaga reebi maayo inagoo markii horeba afar yaryar ahaynoo markii horeba aan itaalhayn marka hore horta ilaahay baynu ka hoos galaynaa laakiin waxaynu qaadanaynaa talooyinka wax ku oolka ah ee illa iskaga gartay in haddii ilaahay inaga aqbalayo la iskaga ilaaliyo xanuunkan sidaynu horeba u sheegnay cudurkan wuxuu dilaa qof dayacan mar haddii aad garanayso meesha dhibaatadu kaaga imanayso dee meeshii baa la iska moosaa la iska ilaaliyaa laga feejignaadaa laga taxadiraa waxaa la xaqiijiyey in xanuunkani dheecaanada afkeenna iyo sankeenna ka soo baxa inuu ku soo dhuunto oo ay noqoto siyaabaha la ysaga qaado haddaan hindhiso haddaan xanuunkan qabo oo aan hindhiso intii ag joogtay ayaan qaadsiinaya haddaan qufaco oo qufacaygii uu tuuro wixii sanbabadayda ka soo baxay cudurkii baan fidinaya haddii aan ku siinsado farahayga ama aan candhuufta iskaga bi'iyo oo aan albaabkii taabto onoo sii socda ka iga dambeeya isna handaraabkii taabta isna xanuunkii farihiisuu ku qaadayaa oo hadhow markuu wejigiisa ama afkiisa taabto dee wuu isqaadsiinaya marka isqaadsiintii si dee badrheedha oo dee qofna intuu qof kale ishortaaga wejiga kaa qufici maayee waa si lama filaana buu qofkii u qaadaya markaa taxadirkii ayaa loo baahanyay inaynu sii xoojinno waxaan aad iyo aada uga naxaa markaan dayaca dadkeenna arko marka dawladdu tidhaahdo makhaayadaha ha la xidho uun maaha go-aan la iska gaadhay maxaa loo yidhi ha la xidho makhaayadahu waa meel bulsha isugu timaado waa lagu sheekaystaa miis baa la wada fadhiistaa waa la kaftamaa maalintoo dhan halkaasaa lagu sheekaystaa habeenkiina waa fiidkiina waa lagu caweeya warbixintaa lagu dhegaystaa radiogaa lagu dhegaystaa waa meeshii bulshadu isugu imanaysay oo waa run oo waa wax wanaagsan oo la jeclaa oo wanaagsanayd bay ahayd waxayse noqotay meeshii xanuunkii uu fursad u helayo afarta qof ay ishor fadhiyaa markay wada sheekaystaana hawadoodii isgaadho dee afartii isjeclaa ee saaxiibka ahaa ee isi soo doonanayey ee marba meesha wada fadhiisanayay ayaa xanuunkii isu tabinaya waxa la yidhaha corona waxay kugu soo raacdaa saaxiibka waxaad u geysaa kaad jeceshahay waxaad hadhow u sii geysaana ubadkaa qofna isma laha xanuun
magaalada ka soo qaado ama baskan ka soo qaad ama makhaayaddan ka soo qaad ama koobkii aad ku cabteen saani loo maydhin ka soo qaado aad hadhow ubadkaaga iyo oordaadii aad u geysid laakiin sida waa taxadir la'aanta waxa uu qofkan ugu geynaya waxa baryahan la yaab leh waxa qofka xidha sanka xidha ee dheecaamadiisa dadka ka xidha kuwoodana iska xidha waa lagu qoslaa waa la xidha corona oo dhagxan bay ku tuurtuuraan ciyaalku waa doqonnimo waa badownimo waxaan ka codsanayaa dhallinyaradeenna iyo waalidka haddii carruurtoodu waxaa samayso inay ka edbiyaan waayo qofkan iska kaa xidhi lahaa ee ilaahay garansiiyey taxadirkaa bal samee in hadhow uu isaga furo wixii uu sanka iyo afka ku daboolayay carruur yareer baa kugu qosli dee waa wax la yaab lahoo ku qosol leh taasaa ku qosol leh doqonnimada intaa la eg carruur baa iigu qososhay baan isaga furay taasaa hadda wax lagu qoslo ah haddaba yay doqonnimo ina qaadin yaynaan dayac u dhimanin hadduu inaga dhex dilaaco waxay naga hadhi maaya london waad maqasheen ilaa ra'iisul wasaarahoodii buu gaadhay 40 maalmood hortood ayaa keeskii ugu horreeyey u dhintay corona 41 maalmood dabadeedna maalin walba oo ilaahay soo rogo waxaa u dhimanayay corona 973 qof bal hadda xisaabi marka maalin walba 970 qof ka dhintaan dee baaqigayga naga soo hadhaya waa maxay baaqi in laga soo hadhi maayo oo qofkii keliya inaga dhintay inaan ka maarmayn oo inuu qof kale inaga dhinto dooni mayno inaynu ilaahay ka hoos gallaanu doonaynaa inaynu faraxal kaa badinaanu doonaynaa inaynu sankaa kala xidhanaanu doonaynaa dumarkoona niqaamkiini xidha raggoona sanka xidha aynu meel uga soo wada jeedno oo aynu kiina badheedhaya doonaya isagoon dan ka lahayn naftiisu dee yuu ina galaafanin ka badowga ee aan fahmaynin yuu ina galaafanin ka doqonka ee aan fahmaynin yuu ina galaafanin ee intiina badan ee wax garanaysaay ka yar tirada yar ee aan wax garanayn tayaynaan baadi u noqon marka anigu waxaan leeyahay farihiina dhaqda anigu waxaan kuwan u gashanahay waday cisbitaal baan jooga dee xanuuno badan baanu ku dhex jiraa inaan qofna wax qaadsiiyo dooni maayo inay anigana iga qaadaan dooni maayo waxaan qof kale ka soo qaaday qof kale u sii gudbiyo dooni mayno waa wax markaan wax ka dhalnayno loo xidhaa waa markaan wax qalayno loo xidhaa waa markaanu qof nadiifinayno u xidhannaa markaanu dhiig iyo malax iyo xaar iyo kaad iyo mantag iyo waxyaabaha aanu ku dhex jirno aanu qofka ka hagaajinayno waanu xidhannaa dee ceeb maaha maxaanu uga xidha haddii looga xidho corona loo xidho dee ceeb maaha sanka waad aragteen waanu xidhan weligayaa la xidhaa cisbitaal waa la xidhaa waayo nabarkaa aan dhayayo neeftaydaan ugu tudhayaa meeshan qalan ee ama aan tolmaha ka gurayo ama aan tolayo ka aanu wax qalayno wax dhayayno dee sankaanu xidhnaa waa nabar nadiifa oo uga xidhan maayo laakiinse neeftaydan ayaan ka xidhanaya inaan meeshii qallayd ee aan tolmaha ka gurayey inaanay neeftaydaasu aanay wax caabuqa u keenin markaa taxadirkaa weeyaan markaa taxadirka aynu wada samayno waxaan doonaya dadkayga aan jeclahay ee somalilandow waxaan doonaya inaad kelmadaydaa dhegaysataan hanbay inaga hadhi mayso haddaynaan meel uga soo wada jeesan waxaan doonayaa waagu markuu beryo aroorta haddii ilaahay nagu simo inaynu hargeyso sanka wada xidhan aynu u soo toosno oo qof walba sankaaga xidho oo qof walba ka aan xidhan la yidhahdo war soo xidho sanka oo inta badan ee wax garanaysaa inta yar een wax garanayn
ay waanisaa oo ay tilmaantaa waxaan doonayaa bulshadu inay iyaduna iska ahaato dalkana gaar ka ahaato waxaan doonayaa bulsho weyntu inaynu meel uga soo wada jeedno wax farifool ma dhaqday Soomaalidu tiraahdaa dawladda kaligeed wax qaban kara mayso dawladda waayo waa inaga waa dadka waa bulshada waa inaga waa ummadda waa ka wax garanaya waa ka damqanaya waa ka waanada dhagihiisu u daloolanay maqlaya marka waxaan leeyahay hooyo ilaahay wuu ina jecel yahay way imka waqti buu ina siiyay aynu isku diyaarino oo inagu yar yahay sidoo London ba uu mid iyo 2 iyo 4 iyo 5 iyo 7 iyo 20 u noqdeen intaynan gaarnayno tabaabashaysano culimada diinka waxaanu marti uga nahay inay dadka wacyi galiyaan oo waaniyaan oo waanadeenaas waa isku mid haday dhakhtar ka soo baxdo iyo haday culimada diinka ka soo baxdo iyo haday waalid ka soo baxdo iyo haday qof wax garar ka soo baxdo waa waanadii weeyaan wax inoogu hagaagayeen meel ma uga soo wada jeesanaa hadaba ilaa sidan oo si maaha dayacani tawina galaafanaya caruuraha waalidka u horseeda aroorta ku waani caruurta maxaa hooyo maxamedow caashay axmedow hooyo edeb darada ayaan suuq yaan maqlin inankaaga qof sanka xiran ku qoslay ama dhagax ku tuuray wayada sida inankaaga u jeceshahay ayaa qofba ilmihiisa u jecel anna waan idin wada jecel ubadkayga baati waxa la yaab leh makhaayadahan intay hoosta ka xidhaan halka shaahi hadana ku siinaya oo dayay ka dhoomanaya yay khiyaameynayaan tolo dawladii baa tiri hal xidh laakiin waanu iska furanayna oo yay khiyaameynayaan tolo naftoodii bay khiyaameynayaan marka ayayna nafteena khiyaameynayaan aynu meel uga soo wada jeedno aynu is ururino aynu isbasrino ilaahayna ka barno inuu inaga badbaadiyo aad baad u mahadsantiin hooyo dardaaran waa inta ifka la joogo yaynan berrito farta qaniinin ayna oran tollay hadaynu markii waxa yeel lahayn ma waxaynu sugnaa inta dadkeenu jeclay naga dhimanayaan ma waxaynu sugnaa inta dadkeenii 10 xabaar wadareed lagu ridayo ma waxaynu sugnaa inta meydkii marka la aasi kar waay la gubo ilaan dad badan oo muslim ah jooga adduunkaas markii la aasi kar waay dab la qabasiyo la wada gubay mataasaynu sugnaa mataasaa kalgacaylkii ummadkee waalidkeen iyo dadkeenaynu haynay mataasaynu ku sii amba bixinaa ka inaga dhinta insha Allah cid inaga dhiman mayso insha Allah hadduu ilaahay ku dhacana haddii nagu dhacna ilaahay si yaro basiitu inooga dhici laakiin de garan mayno wuxuu noqon hadhayalsanina aad baan idin salaamaya hooyo ilaahayna waynu ka hoos galaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh